Soomaaliya waxa ku qasbay beeshii lixaad anaga isku metelinin waa nolol taliya xaqiiqada markii la dhaho fikirkan fikir Soomaali asalkeedu waa yimid laakiin in la qaato waxa ahayd wax adduunyada iskala ka timid anaga waxa ahayn on process nolol sheegay waa la sii gudbiyay hawsha ee ma ahayn wax inta la tashtay oo Soomaaliya dhan laga la tashtay hadda Soomaaliya marka la hadashtay federaalka dhaqan gaalo way ku leeyahay dhaqan gaalo ma ah waa system dawladnimo oo adduunyada ka jirta dalalka maanta adduunka ugu hodansan Raashka Faransiiska Mareykanka Hindiya Nigeria wadamada hadda dhaqaalaha adduunka haysta waa federaal because federaalka waxa loogu talagalay inuu xakameeyo awoodda dawladda dhexe hadda salahan Soomaaliya 30 sano waxay ahayd dal hal awood meel ka jirta caasimadda wax kasta caasimadda loo imaajiray qofku hadduu xanuunsado dig federal keeni jir oo general hospital ahaa wax barasho hadduu u baado la fool lagu xarin jiray Hargeysa 67 dugsigii ugu horeeyay mise dugsiga labaad laga furo dugsi sare caasimadan oo caasimadii labaad aysan waxaan dugsi sare dadka dhan waxa la leeyahay sheekh iyo boorama halagay dugsiga Amuud waxaan dugsiga Amuud 300 kilomitir oo noo jira caasimada labaad isku sheegayna marka muhiimka waxa waaye in la xakameeyo dawladda dhexe hadda tusaalahan Soomaaliya federaal ay qaadatay caasimada dawladda goboleedyada Garowe hadaa tagtid magaalada nabad xamar ka nadiif badan ka qurux badan ka amaan badan waa baydhabo la mid Dhuusmareeb la mid Kismaayo la mid dibka la meeshan ku jira marka muhiimada loo qaato waxa waaye in la xakameeyo awoodda maadaama 30 sano dalkan uu burbursanaa dawladnimadii Soomaaliya god ku dhacday la doonaa in dib loogu soo celiyo waxa waaye in suusan dictator dambe uusan soo laaban taas in laga hortago sideen uga gudbi karaa wax akhris la'aanta waxaad uga gudbi kartaa inaad jadwal sameeysid timetable ku gaar ah oo aad sameeysid markastoo timetable ku gaar ah sameeysid waxaad arki kartaa waqtigii ka qasaaray buugaag soo qaado timetable oo sameey hadda timetable sameeydi waxaad ogaanaysaa waqti far badan ku soo haraa makarata laakiin bila jadwal hadda tahay waxa waaye cawshaas libaaxa waxa cawshu ku dilaa mataqaana cawl badan haduu yimaado jinka webiga ama badda joogta ama meel biyo ku jiraan jadwalka dhan oo ka qasaa meel uu carre dhawaaqiisa iyo guuxiisa intuu isku daro ay meel uu carrana kala qoweynaya markaas waxa fududaanaysa inuu hal mid kala haro marka day adigu ha isku buuqin waxa sameeysaa jadwal ku gaar ah nood garayso taas kugu haboon waqtiga ugu haboon ee wax la akhri wax la qoro waqti gooni aan isdhihi karo runtii waa jira ma jiro laakiin waqtiga ugu haboon qof kasta jadwalkiisa ku xiranta jadwalka uu leeyahay qofku bay ku xiranta qof jaanis habeenkii uu leeyahay qof subaxdii uu leeyahay qofba waqti marka xilliga ugu haboon aan isleeyahay xilliyada qofku salaada subax markuu tukado kala haduu jaanis fiican leeyahay inuu computerkiisa furto wuxuu ku qori karo ku aqoro haddana maalinta kale waxaan ay ka isdhameystiraay adduunku waa 9 tobanobin ma hayno wixii maanta laga bilaabo berri waa dhamaystirmaa insha Allah